السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن ملو المضافة دونيدا آد كجوكتان ومن مقرن يحرونتي سال لندن ساكو أربعة وراركي قدام بيا قلبات كسيتي والوحا كوريسانينا oo noo soo gudbinaya wariyahana inoo jooga galbeedka city gaar ahaan magaaladaasi Shinile iyo mudaharaadadii maanta ka dhacay iyo waxyaabihii saaka ugu dambeeyay waxay ku abarisatay gobolkaasi city waa Cabdo Yare ama Cabdo Cadde mid kaan u taqaanaaba insha Allah taala haya Cabdo saaka maxaad ku abarisateen bal wararkii ugu dambeeyay adoo noo qaada dhigaya insha Allah taala bal noo faahfaahin insha Allah boqorow saaka xaaladdu waxay ku waabariisatay dan la helay meel ka sareyso oo la yiraahdo Birtaas oo xagga anfar gawaani ka xigta ayaa saaka aroor la isku galay sida hadalka loo dhigayo dadkii aaga ka sokeeyay dan la helay joogay markaan wareystay waxa uu leeyahay xabadu way sii jeesatay ilaa iyo gawaani ayaa lagu hagaagay soona uu iska sii daba dhacaya taas wali wax dhimasho iyo wax dhaawac oo hadda xogteeda dhabta iminkaan wali lama kaba soo bixin waan sugi doonaa wararka dambe labaad baan ku dhigay inaan ku soo diri doonaa insha Allah xagga cadaytina waxa la sheegayaa xilliyadan ay subax la joogo imikada ilaa hadda waxa la leeyahay inay ay diyaar u yihiin ay ku soo noqdeen oo waxa la awoodooda inay soo dul dhigteen haddana mar labaad oo ay dagaal labaad soo qaadayaan imika cadayti ciisuhuna ay xabadu gabaabsi ku tahay oo ay cabsi xagga dhinacan arabakada iyo haruurka ay u baahan yihiin taana aw ciisahan abaabul aw ku jiro sidii looga jawaabi lahaa baahida jirta iyo raashinkoodaba taasna waxa weeyaan waxa kale oo taas oo raacaya والمظاهرات ساكا كدعي iyo ka soo aragtaa gobolka city ee la sheegayo biyo qaboobe Shinile ay shacab jidka xidhay dawal ooga tareenkii ku cadilan yahay kuwana iyo ka soo aragtaa waxa kale oo inta soo raacay banaanbax lagaga soo horjeedo oo ka dhacay Shinile saaka ayaa anigu aanu joogay waa soo duubay fiidiyogeeda taasoo la leeyahay andhafi cadayti iyo garbaciise Soomaaliba iskale laguna taageerayo dadka iyagu la gumaadayo lagagana soo horjeeda xasuuqa meesha ka dhacay sidii Itoobiya ay indheeda ugu fiiq lahayd oo dadka ay u kala joojin lahayd insha Allah waxaan kale oo sheegaynaa Soomaalidu dhammaan meel kasta ay joogtaba sidii ay uga soo hawlgali lahayd amba ay af iyo gacan iyo leeysa banaanbax iyo leeysa intaba ay taageero walaalahooga gumaadka ku socdo loogu yimid guriyahooga caruurtoodiina lagu gubayo guryihii laga gubay la barakiciyay si ay taageero iyo leeysa intaba ay iyagna banaanbax iyo wada tashi Soomaali midaysan si loo helo baaqaasan iyagana u dirayna insha Allah taasna waxa weeye wixii kale inta ka soo daba mara amba ka dambeeyana waxaan ku soo tabin doonaa wararkeena dambe insha Allah assalamu alaykum kaasi wuxuu ahaa Cabdo Yare oo naga soo warbixinaya insha Allah degmadaasi Shinile magaalo madaxdiisa insha Allah mudaharaadadiina goobjoog u ahaa saaka insha Allah taala toos loogu xidhan jidda hor ee galbeedka city insha Allah taala waxaan dadweynaha aan ugu siinayna insha Allah caawa inaan soo gali doonaa hawada insha Allah taala anako daafaha Yurub iyo daafaha qurbahaba